بسم الله الرحمن الرحيم. البدر المنير أدري بأنك واثق أن النهاية للصبور، أدري بأنك واهن لكنك البدر المنير، أدري بأنك واثق. طيب dadka qubuurta ku ictikaafa waa bidcada la sheegayo qolada ugu sarraysa, bal waxay u badan yihiin dad aan diin lahayn. maxaa yeelay allah subxaanahu wa tacaala keliga ayaa la caabudaa, cid kale oo lala caabudi karana ma lahan. dadka qubuurta ku dawaafa oo u xajiya meelaha qubuurta ku taallo oo yidhaahda haddii qabri hebel intaasoo jeer lagu dawaafo waa xaj ama waa xajulmasaakiin, iyo dadka u aaminsan dadka qubuurta ku jira inay wax qabtaan amay wax gooyaan amay wax tari karaan. dadkaas ayuga oo waxa ay la yimideen shirki weeyaan, waxayna ku tirtiyeen mushrikiinta haddaysan ficilkaa ka tegin. ma ahan arrintooda bidca iyo waxaas way iskala saramartay. waxay soo gelayaan qolada alla yidhi subxaanahu wa tacaala waidaa xushira annaasu kanuu lahum acdaan wa kanuu bicibaadatin kaafiriin. way ku kufrinayaan berrito dadkan ay leeyihiin waxbay qabanayaan. ama salaada la dur tegayo qubuurta laguma dul dukan karo, xaggooda looma dukan karo oo lalama qaabili karo salaada. laa tusalluu ila alqubuur walaa tajlisuu calayha, adilo saxiixa nabiga ka sugan. xaggooda ha u dukanina, hana ku dul fadhiisanina. midda kale xadiis sixadiisa sugantay nabigu waxau sheegay sala allahu calayh wasalam makhluuqa ilaahay dadka ugu khayrka daran inay laba qola yihiin. qolada ugu horraysa waa qolada dhisi doonta qubuurta, yatakhiduuna alqubuura masaajid. qolada labaadna waa qolada qiyaamadu ku dhici doonta ayagoo axyaa oo nool. ayana inta iimaan kale waa laga sii qaadaa nafta, sida adilo saxiixa caddaynayso. marka dadkaa qubuurta dhisaya oo derbiyada yacni ku wareejinaya la marinayo nuuriyadda, iyo dadkaa qubuurta ku dawaafaya, dadkaa sardiga ka gelaya, dadkaa qubuurta xiriirka noocaasa la leh, haddaysan ka tooba keenin oysan ka bixin dadkaa shirkiga lagu xukumayo ay ku jiraan. maxaa dadka loo gaalaysiinaya iyo maxaa xagga looga dhacaya maaye. waxaa meeshan yaalla arrin aad u adag. rasuulka maanta uu geeriyoonayay dhowr maalmood ka hor, 5 maalmood ba riwaayadaha qaar sheegayaan. waxa uu lacnaday yuhuud iyo nasaaro, qubuurta ambiyadooda iyo saalixiinta ayay masaajid ka dhigteen. caaisha waxay tidhi rasuulku waxau ka digayey waxa yuhuud iyo nasaaro sameeyeen. waa waxa maanta ummaddeenni samaynayso, waa waxa culummadeenni ay la wada huwan yihiin oy saa ku wadaan oo ay u haystaan arrintu inay sidaa tahay. oy ku leeyihin awliyadii lagu xadgudbay, awliyadii xagga laga dhacay. yaa ka awliyaysanay abubakar iyo cumar iyo ragga marka laga soo tago khulafada qaybaheeda kale iyo ragga jannada loogu bishaareeyey. qubuurtoodii meelay ku taalla lama yaqaan, say u badan tahay. maxaa qubuurtooda inta loo raadiya loo dhisi waayo ama nabigu dhihi waayo waxa laga qabto? ambiyada ilaahay oo hore u dhimatase qubuurtoodii maxaa loo tusi waaye? qabri in la dhiso la dul fadhiyo hadday faa'iido leedahay. waxay muslimiintu yidhaahdaan sida xadiis bukhaari ku sugan caddaynayo, nabi muuse waxau alla weydiistay baytulmaqdes meel u dhow in nafta looga qaado. maxa u odhan waayaa la yidhi baytulmaqdes gudihiisaba? waxau ka baqla ayay odhanayaan muslimiinta yani shuraaxda muxadidiinta in qabrigiisa inta loo aqoonsado la dul fadhiyo. sidaa darteed meel ambiyada alla ku duwanyahin lama yaqaano. rasuulkana un baa laga garanaya sala allahu alay wasalam. haddii loo baahan yahay qabri in ilaah laga dhigto noocaa weeye. midda kale adduunkan goormaa gaalnimo ugu horraysay? maantii musawir la sameeyey, qabrina la dhisay. gaalnimada dadkii ay ku bilaabato kuwii ugu horreeyey maxay ahaayeen? niman culamaa sulaxaa. waqaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaca walaa yaquuta wayacuuqa wanasra. sida bukhaari ku sugan waa 5 nin oo culamaa oo wanaagsan magacyadood, oo sidii loo dul fadhiyo maantii dambe la yidhi ayuga ilaahay ah. qubuurta la dhisayaa noocaa weeye. ninka qabri ku dawaafay waxau diin leeya ma haysto, ma jiraan. waxauna beeniyey si caddaana u inkiray aayadda alla yidhi iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin. adiga keligaa baan ku caabudaynaa, kaana kaalma dalbaynaa. dadka qubuurta ku dawaafow rabbigiin ka cabsada. dadka qubuurta odhanaya qubuurta waxbay galanow rabbigiin ka cabsada. war nin asaga islaanta u qabay la dumaalay oo asaga abaar cunay maxau kuu qaban karaa? ninka kan adiga odhanaya awliyaday soo kaco wax qabeen maxau u dhinto isu celi waaye oo adduunka u joogi leeyahay? nin geerida jecel ma jireen ma noolaado. nin soomaalidu waxay tidhahdaa nin dhaysa kobihiisa ka roon. wau garanayaa mahmahyada noocaasa, waxay dhahaan mahmahyadaas waa jirtaa, kobihiisaa dhaama. maxaa yeele kobihii baa jooga. maxaad ka doontay dib wax weydiisanaysaa? maxaad ka doontay? midda kale haddaad ay run tahay
nimanka la sheegayo oo culimada oo dhintay ayagu way dhinteen inay sidaa sheegaysaan wax u qaban karaan. afar nin baa xamar ku dugan baana la ku yidhi oo halaqa iyo badda iyo cudurka ka ilaalisa. xabadda jirdhi iyo ay mooryaan ka wado ma naga qabtaan hadday badda naga hayaan ayagu badweynta hindiya ninka celiyey xabadda waa naga celin karaa hadday run sheegaysaan. haye war ilahay ka xishooda. midda kale qubuurta meelaha qaar ku taala sida biyooli oo kale waata la yidhahdo waa boqolka awliyada cirka iyo dhulka ayuu kala hayaa. waxyaalo weyn baa jira lugta uu ku fidaya meelaha qaar ama mid marka ku yaalla maraakiibta badaha maraysa hadday gidoontiga lugta ku toosiyaa. hadduu lugta ku toosi karo ma naga toosiya dalkaan qarrima balayada nagu dhacday maalin walba u tagtaane ordaha shardi ka soo gala waxaa qabtee nimankaan u taga awa dadka waxaan sheegayay ilaahayna ka xishooda. dadka amwaadda oo dhinta u duceeya allah u naxariista ilaahda. haddii waalidkaagu ku jiro waalidkaaga waktiga ilaahay ku siiyo sadaqa u bixi amaan wakti iyo beri iyo bil midna u yeelayn. waxa kalood wadan joojiya awliyada kaan iyo xagga oo ilaahay awliye waa leeyahay oo ninka inkiraa diinta waa beeniyey. awliyada allana rag iyo dumar uma qaybsanto. axad alla axadkii laga helo laba tilmaamood waa weli ilaahay aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun. qofka iimaan run ah iyo cabsika laga helay oon weligii xaaraan iyo xaqdarala iman oo wanaagga ku dadaalay axadkaas waa weli ilaahay. midda kale dumarkaan u sheegayaa arrintaas ha ogaadeene dumarka oo aad baa laydin khiyaane. haween awliyaa uma jiraan maxaa awliyada laydinkugu digoon nimanka awliyada looga dhigaa. nimanka waa idin sirteen iska celiya nimanka naaga awliya idin golma samaysta. بدر المنير أدري بأنك واثق أن النهاية للصبور. أدري بأنك واهن لكنك البدر المنير. أدري بأن